waxaan ka camanaynaa xaquuq la'aanta shirkadda Furfuri ayadoo ah maadaama ay dawladdu ku dhawaaqday coronavirus 4 bilood saas laaliga shaqaaluhu ay banaanka joogeen haddana ay dawladdu ku dhawaaqday bisha 3deeda saas laaliga oo shaqaalihii dhammaan maaragtaan soo wada galnay ka bacdina shirkaddu ay tiri yaa in soo xareeyay yaa in soo amray inay soo gashaan elaboorka ayadoo amarka dawladda annagoo ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo qaadanayna saas laaligeed oo xaasalayaal dhibanayaal intaba isugu jira ayaan soo wada shaqo tagnay ka bacdi shirkaddu waxay noogu hanjabtay yaa in fasaxay oo elaboorka imaada in yiri saas laaligeed waxay kale nagu sameeyay xaquuqdii aan xaq u lahayn ina maaragtay aan ka weynay anagoo xaqeenni iyo xuquuqdeenni ay 4 bilood iyo masaada ninka ugu yarno 5 sano shaqeynayo ayaa haddana la yiri yaad u timaadeen yaasa ka timaadeen marka dawladdeena waxaan ka codsanaynaa in companygaas Furfuri ee airportka haya ee haddana saakay shaqaaliheenni qaarna reebta qaarna kalena iska baxana yiri xaq iyo xuquuq waxaan ku leenahay aan ka helno anagoo ah muwaadin Soomaali niman ajaaniba oo nala joogay oo nala shaqeynayay ayna shaqeynayaan ayna bixin 4 biloodan baagamudada ah haddeertaan nala yiri baxa ka baxa xiradan idikaaradan ka qaadanayna marka wax walba oo dhaca anaga waxaan ka warsugeynaa dawladdeeni waxaan u sheegayaa dadweynaha Soomaaliyeed macallin dawladda ina cabash kan hana dawladda shirkadda Furfuri taas oo naxaqirtay 4 bilood wax mushaar ay wax xuquuqna siinin kabacdina shaqooyinkayni maartay marka dib ugu soo noqonayna kabacdi naaday elaboorka ma furno waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo wax qaban karto oo Soomaaliya amba wax ka dabqato in aanka nala xaqiray oo nala bahdilay oo nala jiiday oo in jiideen niman Afrikaan oo u dhashay dalka Kenya iyo dalka Uganda kuwaas oo shaqaalaha hoose oo xafiisyada hoose joogo oo marba Soomaalida waxay rabaan tacaadi ku sameeyaan haddaan dad ka dhiidiyo oo diinta islaamka haysto amba haysto maartay qadiyadda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadkaas cadawga inay xuquuqdooda noo qaadaan